بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله مركور إلهي بس يا مهضله waxaan aniga ku sugan maanta xarunta guud ee xisbiga wadani magacaygu yahay Daahir Xuseen Cawaale waxaan halkan ka cadeynayaa inaan ahay musharax u taagan ama shaacinaya ama cadeynayaaba inaan ahay musharax u taagan doorashada golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal dhici doonta bisha sanaad 2030 insha Allah taala anigoo ah muwaadin Soomaalilander ah aaminsan qaranimada Soomaaliland iyo dastuurka dalka iyo xeerarka kale ee dalka u yaala waxaan ku rajaynahay ama aan isleeyahay inaan dalkayga iyo dadkayga gaarsiin karo horumar iyo midnimo waxaas halkan waxaan uga mahadnaqayaa marka hore Ilaahay baan uga mahadnaqayaa marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa xisbi weynahayga wadani aan kamid ahaa ilaa urur ilaa xisbi aan kamid ahaa ilaa maanta oo aan ka sharaxanahay waxaan u mahadnaqayaa kale walaalkay Maxamed Faarax xoghayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani oo mahadnaqayaa waxa kale oo mahadnaqayaa ummadda reer Soomaaliland iyo dadka aan u sharaxanahay ay daawan doonaan insha Allah taala waxaan u rajaynayaa dalka iyo dadkaba guul baan u rajaynayaa horumar iyo badhaare iyo barwaaqo aad iyo aad baad u salaamantiin waxaan ku soo dhaweynay xarunta xisbiga Daahir Xuseen Cawaale ruuxaantiina ahaa halbowlayaashii ka soo shaqeeyay doorashadii hore ee 2017kii Daahir waxa uu ka mid yahay musharaxiinta ka soo jeeda gobolka Awdal waxa uu ka mid yahay ragga haldoorka ee maanta isku soo taageen mas'uuliyadda culus qaadaan waan u ducaynaynaa Daahir marka hore waxaan runtii ku boorinaynaa beelaha iyo dadweynaha odayaashu inay soo xulaan dad maanta runtii lagu aamin karo mas'uuliyaddan loo socdo gaar ahaan gobolka Awdal ragga ka socda waxa ay odayaashooda waxa looga baahan yahay soo xulaan dadkii ka saari lahaa cabashadoodii faraha badnayd waxa uu Daahir runtii ka mid yahay dadka mas'uuliyaddaasi qaadi doona waxaan isleenahay waa dadkii ugu mudnaa ee isku sharxi lahaa inay maanta ka mid noqdaan candidate-ka 2021ka May ka dhici doonta Somaliland aad iyo aad baad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.